qof adeerkaa ah saan ku galaya isma aan dhahaynin guriga qolku xoog lagu geey gacanta intuu ijiiday ninka gabadha nooca u dhibaateeyay ee damcay inuu gabadha kufsado ee xildhibaanka ah ee dawladda ku jira waa ninka dawladda Itoobiya markii dawladda federaalka ee Soomaaliya baydhabo lagu duulay waa ninka aad aragtaan haddaba arrintu siday u dhacday iyo sababta arrinta ka dambeysay baan rabaa inaan muuqaalka kugula wadaagay hayga degdeg assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa idin salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan oo walaalkiin Cabdullaahi Macalin Xuseen waan rajaynayaa anagoo nabad iyo caafimaad qabna in rabbigeen uu mar kale dib inoo kulisiiyay isaga ay mahadaasi oo idin u sugnaatay inta dhiban Allah ka dulqaado inta isugu toosantahay in Allah uu barakeeyo nabigeena calayhi salaatu wasalaamna aan ku wada salino muuqaalkan aad iyo aad ayuu dhammaanteen muhiim inoogu yahay ummadda Soomaaliyeedna muhiim ayuu u yahay qof kasta oo muuqaalkan daawado waxa amaano ku ah inuu qof kale sii gaarsiiyo like noogu badi si ummad badan u gaaro noo share gare wixii talay tusaale arintan ku aadanna qaybta commentiga nagula soo wadaag aad baa u mahadsantihiin soo dhawaada markaa sida aad hordhaca barnaamijkayga ku soo aragteen hadal badan inaan galama doonayo ninkan idin muuqdo xildhibaan mashruuc baa la yiraahdaa waa xildhibaanadii ayaan dhaweeto markii la yiri Itoobiya xiriirka ha loo jaro aad ugu ololeynayay in Itoobiya aanan xiriirka loo jarin bal Itoobiya ay abaal badan ummadda Soomaaliyeed ku leedahay maadaama ay suurto gelisay Itoobiya in calankii Soomaaliyeed laga taago madaxtooyada Soomaaliya dhaxdeeda laga taago Itoobiya ayaa suurto gelisay ayuu leeyahay isagoo markaas oo la jeedo maxkamadii islaamiga ahaa ee waagi Itoobiya la dagaalamayay markii magaalada Muqdisho ciidamada Itoobiyaanka ee Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali Maxamed Geedi ay wateen ay magaalada Muqdisho ka saareen iyo guud ahaan dalka Soomaaliya haddaba xildhibaankan aad u jeedaan marka idin leeyahay xildhibaan Soomaaliyeed aqoon laguma keenin diin laguma keenin xaaraan iska ilaalin laguma keenin lacag baa lagu keenay marka aan ku leeyahay dad badan baa laga yaabaa inay qalad u fahmaan xildhibaanka Soomaaliyeed waxa hore idin kugu sheegay qof kasta oo dawlad hadda ka shaqeeya ama dawlad uu wax kaga jiro dhammaantood inay Soomaaliya u soo shaqo tageen cid ummad Soomaaliyeed u shaqeysaa inaysan jirin cadeena waxa kugu filan muuqaalkan murugada badan ee gabadha Soomaaliyeed ay uga shaqeynayso ninka xildhibaanka iyada matala dhibaatada uu ku sameeyay iyo muuqaalada argagaxa leh ee gabadhaasu ay kala soo kulantay ninka odayga ila daawada inta markaa ugu imaaday oo wasaaradda aan ku kulannay wuxuu yiri qadan ku sameeynaya adeerow igu imo xaafadayda qadan ku sameeynaya adeerow xaafadayda igu imo already gabadhi waa la soo xarigeliyay saakiin ba iskeed magaalada Muqdisho joogtay ku soc waxaana la dhahaa magaciisa Axmed Nuur Sheekh Maxamed Luxus ku magac dheer xildhibaan mashruuc ani magaaladan waxaan ka imaaday Dhobley meel la dhaho Muqdisho waxaan joogay in muddo 5 bilood waa xanuunsanaa xanuun awgiga aan u imaaday Muqdisho daawooyinkii wixii markaa qaatay qarashkii baa iga go'ay marka ninkan waa ogaa inuu inta joogo oo xildhibaankayga uu yahay xildhibaan wasiir buu isku darsaday xaafadan waxaa ugu tagay madaxtooyada ku dhex taalo gaar ahaan maxaa la dhihi jiray Wardhiigley marka ugu tagay gurigii aan gurigiisa ugu tagay waxaan islahaa nin adeerka ah waaye waxna waan ka bixin buu dhahay tigidkii wixii waan ka bixinayaa oo ku dirayaa sasba u maleynayay adeernimaana u soo raadsaday gurigiisa markaan tagayna wiil staafkiisa la socday guri cidlo ahaa aan fadhigan iska fadhiyay casirkii 10 saac mar ay heeda soo raacnay guriga markaa imaanana asagana maxaa la dhihi jiray salaadii wuxuu soo tukaday guriga markaa imaan oo fadhigii ani aan fariistay uu imaaday gacan iyo inuu taabtay waxyaalo saas awgeed isku dayay waan iska celiyay oo waan iska dharbaaxay ilaa maxaa la dhihi jiray suurtagal in ku meesay qof adeerka ah oo haddana qaraabo aad tihiin oo haddana xildhibaankaaga ah wasiirkaaga ah saan ku galaya isma aan dhahaynin guriga qolku xoog lagu geey gacanta intuu ijiiday guriga markaan tagnana maxaa la dhihi jiray wuxuu damcay inuu faraxmeeyo taabto waan iska celiyay waan dharbaaxay uu ii hanjabay niman buu iigu yeeray 2 nin ah midna taleefanku iga qaado taleefanku iga damiyay taleefankii markuu iga damiyay horaan markaan xaafadda ka soo baxayna wuxuu igu dhahay
inaa ii imaanayso cidnaha u sheegin cidnaha la wadaagin inaa ani ii imaanayso arrintaa markuu igu dhahay aan shakiyey haddana waxba kama soo qaadinoo dee waxaan isdhahay waa nin adeerkaa waxba kuuma sameynaayo gacanta markuu isoo jiiday oo nimankii uu u wacay nimankii way idirdileen taleefonkiyaa liiga damiyey mid baa iisoo istaagay oo idharbaaxay midna biskoolad buu miduu abtu u yahay iyo midda adeer uu yahay waaye kii adeerku u ahaa gacantii intuu iqabtuu idharbaaxay uu igu booday oo hataa meeshan gacanta uu nabar weyn iga gaarsiiyey kii kalea soo boodaanay labada ninoo isku dhegan kii abtigu u ahaa soo booday tintuu iqabtay biskooladuu madaxa iiga garaacay kadib ninka dee xildhibaanka ah wasiirkana ahaan oo adeerna ii ahaa wuxuu fadhiyey fadhiga hal meesha liigu dilaayay wuu taagnaa nimankan markay jirdilaayeen waayo asagaa u wacdayba kadib markuu u yeeray ee nimanka jirdileen asagana taleefonkiigii baan jaanis ku helay taleefonkii anoo rabo inaa ciddeena u sheego dhihi rabo dee ninkaas baa waxaas falka xun igu sameeyey isaa u ogaada taleefonka intuu iga qaado idharbaaxay markuu idharbaaxay taleefonku iga jijibiyey biskooladuu igu soo baxay wuxuu yiri 5 xabaan kugu tirinayaa maxaa aabaha arinta u gaarsiinaysaa habeenkii 4 saac markii la gaaro asaga wuu iska baxay shirar iyo wax buu aaday markuu iska baxay guriga cidlada aniga leega dhex tagay labada nin oo jirdileen laba kala loo wacay xaafadii baa hadana maxal dhihi jiray li igu hanjabaayo li dhahay lagu bixinaayo gaari kaari oo gurigiisa yaalay ayaa la igu qaatay gaariga markii la igu qaatay waxaa la igeeyay saldhiga Xamarweyne oo bii waxa imaysan geenin saldhiga gudihii markaan galnay gaariga la igu dhex qufle eegana way daneysteen si iskula soo hadlaayeen kadib way ugu soo noqdeen markay ugu soo noqdeen ii hanjabeen ay dhaheen godka jilcoo waan ku geenaynaa wayna iga tiro badnaayeen habeenkii oo dhan si ii wateen marba meel ay ii geenaayeen salaadii subaxa maxaa dhihi jiray la aadaamay guriga baa la keenay mashruucna wuxuu igu yiri iridaad kama bixaysid halkan baa xabsi igu ahaanaysa taleefanadii iyo wixii aan dadka ka wacan lahaana dee la iga damiyey dee waxay soo fasaxeen 5 saac oo duhurnimo ayay soo fasaxeen marka bana ahay ina waxaan rabaa cadkayga la ii soo dhiciyo oo dee ninkaas meel la iga saaraa u baahanahay jirdilay ii geysteen iyo maxaa la dhihi jiray gacanteeda hadda aragto waayaabeysa korka way iga garaaceen wax la ii reebtay oo ilaahay abuurtay ma jirto guri cidlaa la igu dhaxalay oo dabaq ah korkina waa la iga garaacay hadda nabarkan waxaaba iiga daran madax xanuun zaa'id iyo korkool iiga garaacay meel walba jug iiga gaarto jugta ii qarsoonaa wax walba ka badan gacantana dee biskoolada la iga garaacay waaba tanbo gacanta dhan qaraxday xildhibaan mashruuc waa ninka inta badan gabdhaha Soomaalidu dhibaatada noocaas oo kale markay soo gaarto qofka dhibaatada ku sameeyay ma sheegan ninbaa saan igu sameeyay ninbaa intii igu sameeyay ninbaa saan idhahay ninbaa inta idhahay inta badan 99% inta social media aan ku wada jirnay ee arrimahan bulshada iyo dhibaatooyinka gabdhaha Soomaaliyeed qaar kamida rag isku sheegayaal Soomaaliyeed ee ku sameeyaan 99% ma sheegan magacyadooda iyo sawiradooda laakiin haddii ay ku dhiiran lahaayeen sida qaar kamid gabdhaha Soomaaliyeed ama gabadhan oo kale ama gabar kale oo iyadana shalay mar aan maqlay iyadoo la wareysanayo hadday ku dhiiran lahaayeen dadka dhibaatada u geystay in magacyadooda iyo muuqaaladooda ay baraha bulshada soo dhigaan dhibaatadu intaa way ka sii yaraan lahayd gabdhaha waxay ku leeyihiin naftaydan u cabsanaya oo haddii adiga inta lagu dilo kumanaan gabdhood oo kale aad badbaadiso madaxaaga ay ku badbaadaan yaa ka faa'iido badan dhimashada mar walba way sugaysaa oo qof walba uu dhimanaya laakiin intaad silac u dhiman lahayd waxa kaaga fiican inaad sharaf ku dhimato adigoo xuquuqdaada ilaashanaya adigoo sharaftaada ilaashanaya adigoo ka turjumaya gabar Soomaaliyeed xuquuqdeeda iyo sharaftaada inaad dhimato oo gabdho badan oo Soomaaliyeed wadadaadii ay mari lahaayeen ay ka badbaadaan oo wuxuushta u soo tafaxaytay gabdhaha Soomaaliyeed inay dhibaateeyaan ay dhinac uga istaagaan ayaad dhimatay bilaash kuma adan dhiman marka gabdhuhu hadday nooca u sheegi lahaayeen dadka dhibaatada ku haya wax badan baa hagaagi lahaa inta markii aan ka soo gudbo ninka horta gabadhu ay ka cabanayso ninkan weeyaan horeyna barnaamijkan waa idin kula wadaaga hordhaca barnaamijka xildhibaan mashruuc waa ninka idin muuqda waxa waaye waa raggii u ololeynayay ayaan dhaweeto markii xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed iyo Itoobiya lisay haystay raggii dhanka Itoobiya u ololeynayay buu ku jiray asagii dhowr kale oo xildhibaan ah haddaba gabadhan sababtu arinta ugu sameeyay waxa waaye laba qodob baa ugu muhiimsan
qodobka koobaad gabadhu waxay u aamintay inay isku jufo yihiin oo iyada uu matalo ilan Soomaaliya xildhibaanadu qabiilay matalaan 4.5 buu kursiga ku fadhiyaa odaygu qabiilkii marka maadaama isku qabiil ay yihiin oo qaraabo ay yihiin oo is yaqaanaan kalsooni ayuu geliyay in xildhibaankeedii uu yahay ayaduna ay nooca ugu kalsoonaatay horta taa uu kaga faa'iideystay arinta labaad uu uga faa'iideystay waxa waaye duruuf baa haysatay gabadha way xanuunsaneed magaalada Muqdisho caafimaad bay u timid lacagtii baa ka go'day trisbor la'aan bay ahayd waxyaalo badan baa isugu darsamay duruuftaana way kaliftay in gabadhan ay ugu tagto ninka xildhibaanka ama xafiiskiisa ama gurigiisa labada arrimoodba waa kaga faa'iideystay hadda gabadhu ma sheegin in la kufsaday in kale laakiin 24 saacadood wax ku dhow ayay gabadha haysteen waayo maalin bay u tagtay maalintii oo dhan gurigay ku hayeen ayadu waxay sheegtay in la jir dilay oo la dhibaateeyay laakiin waa la kufsaday ma aysan dhihine waxay tiri dadaal badan baan muujiyay ilaa habeenkii oo dhan baa la haystay maxay ahayto maalintii dambe 5 saac oo macnaha waxa weeyaan maalinimo ama subaxnimo ayaa la soo daayay waa dareemi kartaa marka gabadha inta saacadood ee nimankaasu dulmiga inta la egintay ku sameeyeen ay ku haysteen xildhibaanadu marka waxay wataan ciyaal 3 ama 4 boodhikaaro u oo kabaha u qaada oo sidii eeyihii oo kale ay adeegsadaan baa jira oo rabbi ka cabsi aanan garanayn inta kale ay u dulasho nimanka wuxuushta abal fiiri markii ninka xildhibaanka laga tago 4 nin oo kale weeyaan laba isaga mid abti u yahay mid adeer u yahay soo laba maaha isaga ku dar waa 3 labadii baa laba kale ugu yeeray haddana maalintii dambe asagoo shir ku maqan bay labadii ilaa isaga raaceen laba kale oo gabadha si ilaaliyo guriga ku sii ilaaliyo bay u sii sameeyeen xildhibaanka markii lagu daro marka waa 5 qof oo wuxuusha weeyaan hal nin alaysa minkum rajulun rashid hal nin ma laga dhaxwaay nimanka oo yiraahdo in adeerayaalow tani sharaf dhaawac weeyaan gabadhan waan ku xadgudubnay sharafteeda ilaalina hal qof oo dhan laga waayay wuxuushnimadu halkaas ay naga mareysaa marka ninka gabadha nooca u silciyo oo la dhaqmayana waa nin ay ku sheegtay xildhibaan inuu ayada u yahay oo muuqaaladiisana ay soo bandhigtay sawiradiisa intaba way soo bandhigtay war jiraaba cakaaro iman doonaaye jawaabta xildhibaankana waa la sugi doonaa laakiin ummadda Soomaaliyeed ha ogaadaan nin baa gabar kufsaday nin baa gabar dhibaateeyay nin baa gabar sidan ku sameeyay maxaa loo soo qaban laayahay maxaa loo maxkamadeyn laayahay maxaa xagga laga maxkamana waxaa la yiraahday qayl dhacda xagee loo cararaa masaajidka hadday ka soo yeerto xagee loo ordaya waa ma jirto nimankii lahaa sharci dejintii baan nahay hadday qayle ka soo yeertay intee loo ordaa marka waa ma jirto waxaad ogaataan ummadda Soomaaliyeed waa inaad baraarugtaan Soomaaliya waa loo soo shaqo tagay cid ummadda Soomaaliyeed u shaqeysaa ma jirtee ilmihiinana ilaashada dhagihiinu ha furnaadaan ninka dulliga ee gabadha nooca u dhibaatayna waa rajaynaya in la xisaabtami doono xuquuqda gabadhaana banaanka la keeni doono biidnillaahi alkariim waraad baa u mahadsantihiin muuqaalka baan doonaya inaan idinla wadaago idinkuna sii sheer gareeya intaan muuqaalada xiga isugu soo laaban doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh